inaan maanta halkan isugu nimaadno oo aan ku wada hadalno oo inaanu hal family wada nahay oo jaamacadda Muqdisho ka wada tirsan oo sida anuguba aan dareemo markaan qof jaamacadda Muqdisho ka baxay aan meel ku arko asoo ka shaqeynaya ama jidka aan isku aragno sida aan ugu farxo inaan maanta isku wada aragno isbaranno oo aanu haddaanu kala fogaanaynana anagoo sidaas isku waji aragnay aan maanta kala tagno waxaan jeclaan lahaa marka waalid ahaan iyo macallin ahaanba wixii aan ilmahayga ku sagoontin lahaa inaan maanta halkaan idinkaga sheegno macallimiin ahaan waxa ugu horeeya camal kasta aad qabanaysid oo kitaabkeena quraanka iyo xadiistana ku cad wax walba inaad daacad ka noqotid daacadnimada ogow qofku inuu ikhlaas uu la yimaado haddaad camal samaynaysid haddaad hadlaysid haddaad fikir aaminsan tahay wax walba daacad ka ahow shaqada aad qabanaysid wixii karaankaaga afuli intii karaankaaga afuli waxaa la yiraahdaa maskaxdaada iyo muruqaaga haddaad la fariisatidna way dhammaan haddaad isticmaashidna way dhammaan marka kullayba way dhammaan doonaane maskaxdaada iyo muruqaaga waxba ha laari intaad isticmaali kartid isticmaal si daacadnimo ah u isticmaal meesha aad ka shaqeynaysid iyo dadka la joogtid iyo waxaad aaminsan tahay iyo fikirkaagana wax walba daacad ha ahaadee tan ku xigta waxa weeyaan hadalkaaga marka dadka la hadlaysid dad kala gedisan kala da'a kala aqoon ah kala khibrad badan ayaad la kulmaysaan hadalkaaga miisaan meeshaad ku hadlaysid waqtigaad hadlaysid munaasabadu meeshay tahay qofka iyo xaaladiisa wax kasta ka fiirso marka hadlaysid waxa la yiraahdaa ul way qabowdaa ul xanuunkeedu wuu qaboobaa laakiin erey xun ma qaboobo erey xun hadduu afkaaga ka soo baxo ma qaboobo ereygaas marka ereyga aad ku hadlaysid ilaa aad uga fiirsatid oo aad kontrooshid qof naxariis leh inaad noqotid mar kastaba qof naxariis leh oo damqada oo damiir uu ku jiro naxariis leh oo qof dad muslimiin ah nahay oo ilaahay aaminsan adoomadiisana ay waajib ku tahay inay u naxariistaan iyo xataa nafleedo dhan qof naxariis la noqo qof mutakabbir ah isla weyno aqoon kasta haduu leeyahay qofku haddaanu rabbigay ku xirnayn oo uu ilaahiisa aqoonin wuxuu ku soo baxayaa injineer wax kasta bartay ama caalim wax kasta bartay saynisyahan waxaas laakiin aan akhlaaq lahayn ayuu ku noqonaya marka naxariistana ilaali wax bix oo wax kasta oo aad kari kartid bix ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط يا وحبه حتى هذا وحبهين فرحد هي منصو هي وجه فرن به تتكاد كل حجرتي وتكون حنور شاي وحكلته مهمة أيضا عفس كقاضو وحكستو لجو جيستو الشيخ مالين وعد أن كده جيسنا يا إلهي تنبيك صار دافع وحكم ذا لبا وحيالود إلو وولجها حسوسني لبا وحيالودنا ولجها مسكح هذا يعني كبح لبا وحيالود إلو تتكلمك كاسو جاره إلو حسوسني مسكح هذا كسر هالريكور جريني وحاس إسكتور وحبي يعني ميل كابو الحين حسوس تاع إن سمفل أتسميسيد يوناك أتسميسيدنا ها حسوسني waxa dhici karta dad xusuusitid inaad ku manna sheegatid marka ha xusuusani ayadana samaha bixi wanaaga bixi xusuustaadana ka saar ayadana hadii aad markasta xusuusitid qofkaad wanaag u sameysay waxaad leedahay kan bari baan wanaag u sameeyo taas si aan u iimaanin labana ha ilaawino ilaahay xusuustiisa markasta ha ilaawi aakhira iyo xaaladeedana ha ilaawi marka taasna waxa weeyaan
عفس إنها دورتي مركز طبق أو عفسد ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله وكهتوتين يا موقت وكلدو وحكا قلنا يا كواتشق شقينا يا وحكليها وارسك علينك وار هذا الكله يا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله marka cafisku waa muhiim waay sabirku waa muhiim waay waxa kale oo muhiim ah tixgeli afkaarta dadka kale haddaad madax tahay iyo haddii kaleba dadka kale to dhageyso haddaad madax tahay go'aan kaliya ha qaadan dadka kale dhageyso afkaarta dadka kale tixgeli haddaad xataa isku ra'yinaan ahayn tixgeli hayasi ha ceebayn waxa kale oo muhiim ah haddii dadku ay nidaam iyo xeer iyo qawaaniin mu'assasada aad joogtid meesha aad joogtid qoyska naftiisu xataa wixii nidaam ah oo la degsadana ilaali ha dhaawici haddaad meel ku soo biirtid meesha marka horeeto akhri qoraal wixii u degsan oo nidaam ah u degsan marka horeeto intaad wax kalaba samayn maxaa meesha nidaam ka jira nidaamkaas markaad fiirisidna nidaamkaas raac yaanad dhinac oga leexanin waxa kale oo iyadana muhiim ah ballantayna ilaalisid ballan darro waa diin darro Soomaalidu ku maamaada marka ballanta ilaali ballantu muhiim waay waxa kale oo muhiim ah bariyada aadamiga iska ilaali gacanta horsan waxaan wax u baranaynaa u dadaalaynaba oo intaas wax u soo rafanayna waxay ahayd inaad at least aad ka maarmi kartid aadamiga ya maxaan wax u baranaynaa oo ugu muhiimsan waxa weeyaan inaanu wax anfaca aanu ka helo waxbarashada marka bariyada aadamigana iska ilaali gacanaha horsan waliga haddii kale waa lagu talin haddaad mas'uul tahay xataa meel mu'assasa aad mas'uul ka tahay ya ha baryootami waxaad isku daydaa intaad wax qabsan kartaan oo gudihiina isku filaan kartaan inaad qabsataan waxa kale oo muhiim ah ha noqonin danayste qof damaaciya oo danaysta oo wax walba asagoo isla jecel amaanta asagoo isla jecel wax qabadka isla jecel wax walba isla jecel hantida isla jecel wax walba ha noqonin waxa la dhahaa ma waxaad wax u cuntaa inaad noolaatid mise waxaad u nooshay inaad wax cuntid haddaad ku jawaabtid waxaan u noolahay inaan wax cuno de qof kasta uu ka cararaya ya wuxuu ku leeyahay waxaan cunayna dhaaf ya marka waa inaad wax u cuntaa inaad noolaatid bas inaad nolosha inaad ilaashatid laakiin haddaad xaabsatid adduunka waxa hanti yaalo hadii lagu siiyo xataa kuma deeqayso marka iyadana waa muhiim weey isku kalsoono oo qof inaad tahay qof muslina oo afrikaana oo Soomaali ah inaad tahay fadlan ku kalsoono haysiyaasi ma u jeedaan waxaas Soomaali inaad tahay qof muslina muslimnimadaada ku dhaganow Soomaalinimadaada ku dhaganow Afrikaannimadaada ku dhaganow oo aamin haysiyaasi adiga kaalinta xataa bulshada aad ku leedahay qofku markuu heerkaanu kala soo gaaro wuxuu jecel yahay inuu maqaam wanaagsan ka galo bulshada kaalin fiican inuu kaga jiro haysiyaasinu haysnihin dadku bulshada mujtamacaad ku dhexnooshay way ku liidayaan si xun bay ku arkaan haysnihin isku kalsoono oo qof isku kalsoon noqo markastaba wanaag filo markastaba caqabado badan ayaa ka hor imaan doona wiilow iyo gabaray caqabado badan ayaa ka hor imaan doona noloshe wanaag filo oo arkaanta diinta islaamka waxa kamid ah inaad qadarka aaminsan tahay qof islaami ma baniyad jawaba waayo qadarku aaminsan yahay haddaad qadarka aamini weydid islaamnimadaadii iimaankaaga ma dhamaystirnayn ya marka caqabadaha ka hor imaanaya adigu dadaal intaad bixin kartid bixi laakiin caqabadahaas qabkaaga jabine qorshe samayso oo markasta qof planner ah noqo oo resourceska aad haysatid markastaba ku talagal waxaad haysatid waxa ugu muhiimsan waxaad haysatid waa waqtiga ilaali waqtiga dili dhimasho tan ugu liidata waxa weeyaan waa waqtiga ka luma
oo aakhirana waad sheegaysaa adduunna waad sheegaysaa waqtigaaga halumin waqtiga waxa ugu fiican midka aad madadaalo ka dhigatid shaqada marka shaqada nafteeda madadaalo ka dhigatid taasa ugu wanaagsan marka waqtigaaga ilaali resourceska aad haysatid waxa ka waran hadii qorraxda kaliya lagu soo bixin lahaa adduunka dhanna aan qof kale joogin waxaad samayn lahayd ma jarbaad ciyaari lahayd ma mobile baad iskaga dheeli lahayd haddii cadceedda kaliya lagu soo saaro maxaa dadka kale ka quseeya dad kale maxaa ka quseeya ogow cadceeddaas aday ku soo baxday ilaahayna kuugu talagalay inaad ka faa'iidaysatid ka faa'iidayso marka ka faa'iidayso waqtigaaga ha iska beerdarayn waqtiga aad ugu xisaabta naftaada ka adkow oo qof geesi ah oo go'aan leh oo iscelin kara oo isxakamayn kara oo naftiisa ka adag noqo hal abuur yeelo oo productivity samee oo ha iska fadhine jalxad meel la dhigay ha noqonine waxun soo barbarto soo xariiqatay wax u fikir maskaxdaada dhalaali brainstorming samee oo maskaxda ka shaqaysay maskaxda tooji productivity samee meeshan hadda aad joogtaana waa meesha wax soo saar production meesha wax soo saar fikradeed laga filan karo markaan oo kale nolosha oo dhan waa research nolosha oo dhan waa researchkaas wada oo meel ka gaara oo waxun hal abuur yeelo amaanada ilaali amaanada naftaada ilaali amaanada naftaada ilaali amaanada ilaahayna ilaali amaanada dadkana ilaali amaanada ilaali amaanadu waa muhiim waay mashaakil waay haddaad amaanada ku xadgudubtid hankaaga ha yaraysanino qof fishin fog leh noqo oo hankaaga ha yaraysanin gabar baa laga sheegay hablow hankiina ha yaraysanina waa sheeko hadda aan waqti u haynin laakiin muhiim ahayd aad u fiicnid gabdhaha waa uga sheekeeyaa markaasay aad u fakaraan marka hankaaga ha yaraysanino hankaaga fogee yani inaad hadda Soomaaliya joogtid oo xaaladdan lagu jiro intaanun ha isku koobine idaacadaha dhageysta oo wax akhriya oo taariikhdii la soo maray akhri oo macaalamku meeshuu marayo fiiri oo cilmigu meeshuu marayo fiiri oo dadkaas higso oo hankaaga fogee dadka idin la mid ah oo adduunka hogaaminaya fiiri marka hankaaga aad u fogee meel hoos hays dhigin haddii mas'uul laga ahaa shalay oo arday aad ahayd oo fiiga laga bixinayo transportiga laga bixinayo buugta laga bixinayo maanta adaa mas'uula mas'uuliyadaas xambaaro dib hadduu idin bilowday haddaad isla haydeen ilaahu yaa mar ardaynimada ka saara yaa mar imtixaanadan ku dhaafiya hawl hadday ku bilaabatay reerkii qoyska hadduu kugu soo jeesanaya jaamacaddii ma dhammaynino qabso hawsha dhinaca ka qabso wiilkii dugsiga hoose sare dhexe dugsiga sare dhiganayay aduu toosin ka rabaa aduu salaad inaad fartid ka rabaa aduu labiskiisa inaad kontrolshid ka rabaa aduu waalidkiina aad caawisid ka rabaa wixii oo dhan hawshii oo dhan aday kugu soo furanaysa ama shaqay ama ha shaqayn walaaca ugu daran waxa weeyaan marka aad shaqahayn laakiin wax badan ayaad qaban kartaa xataa haddaadan shaqahayn shaqana waan helaynaa insha Allah marka mas'uuliyadda ilaali cilmiga ku dadaal cilmiga barashadiisa ku dadaal cilmiga laamo badan ayuu leeyahay waxaan ugu horeeyaa kitaabka quraanka qof aan quraan aqoonin idinkuma jiro laakiin macnihiisa barta sheekh Abdul Hayy sheekhana inta soo rogatid tafsiirka macnaha barta wuu ku hagayaa shakhsi nool oo wax fahamsay oo noloshan waxay tahay fahamsan ayaad noqonaysaa marka cilmiga ku dadaal cilmiga dadaal la'aan lagu ma helo laakiin hanti dadaalna waa lagu helaa dadaal la'aanna waa lagu helaa waa la dhaxlaa ducana waa lagu helaa sidii nabi Suleymaan oo kale intuu ducaystay baa ilaahay siiyay milkiga adduunka oo dhan laakiin cilmigu wuxuu u baahan yahay dadaal sheekha ugu caalimsan hadduu geeriyoodo cunugiisu haddii wixii uu
shiikhaas yaqaan haddaanu baran kama dhaxli karo marka cilmigu dadaal loo baahan yahay ya gunaanadkii oo dhan waxa weeyaan wuxuu isugu soo ururaya waanadeedii oo dhan waxa isugu soo ururaysaa ustaadadu way iga dambeey doonaane qof wanaagsan noqo